عطورة لا يساعدي السوايل يقعد فانا عطورة لا يساعدي السوايل إذا انطلق qaybta aanu ku leenahay idaacada ee radio Braro oo marba ala aynu kaga faalano ama xogo kala duwan aynu ku soo gudbino oo ka qarsoon shacabka reer Soomaaliland iyo ku saabsan xaaladaha siyaasadda Soomaaliland ee marba markaasi dambeysa hawada isku soo shareeraysa ee arrimaha doorashada xaaladaha siyaasadda Soomaaliland ee marba markaasi dambeysa hawada isku soo shareeraysa ee arrimaha doorashada maadaama Soomaaliland ee muddo madaxweynaha koob iyo 3 casho ay ka hareen doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee lagu dooranayay madaxweynaha بدل دونا مدحوينه احمد سيلايو دوريال sida la socoteen shir maalmihii u dambeeyay uga socday labada beelood ee madax dhaqameedkooda ee beelaha habar jecla iyo subeer awal oo shir uga socday magaalada Burco ayaa shalay labada suldaan ee guud ee labada beelood Suldaan Cabdullaahi Suldaan Ali Muuse iyo Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Abdullahi Suldaan Diriye waxay warbaahinta ka sheegeen hadal ah in ay afkarteen labada beelood oo ay sida hadalka uu u dhigay suldaanka guud ee Subeer Awal Suldaan Xasan oo isagu marti u ahaa isaga iyo madax dhaqameedkii ku helinayay socdaalka iyo odayaal iyaguna la socday oo beesha Subeer Awal beesha habar jeclo oo ay shir kula lahaayeen magaalada Burco balse daawadayaal sida qof walba oo bilaadan u kala aragti duwan yihiin waxa uu qof walba laga bixiyay aragtiyaal kala duwan iyo sidii lagaga hadlay social media oo qofba dhinac uu toociyay go'aankii iyo hadalkii ka soo yaray labada suldaan hasay ahaatee daawadayaal sida xaqiiqdu tahay suldaanka habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Ali oo la doonay isaga inuu beeshiisa ugu baaqo ama uu ku wargeliyo in ay taageeraan xisbiga talada dalka haya ee kulbiya murashaxiisa jagada madaxweynaha ugu sharaxan Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ahaana dowladda xilka ka sii dhamaanayo madaxweynihii ku-xigeenkii Ahmed Silaayo ayaa wax la doonayay sida had iyo jeer marka dad la doonayo in ay arin ku raacaan cid kale in cidaas arintaas looga maganta yahay ama arintaas laga sugay in iyagu soo saaraan baaq ka turjumaya arintaas laakiinse sida hadalka ka arkayseen ama muuqaalka suldaanka beesha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi marnaba aragkiisa kuma dhufan manuu soo saarin dhawaaq ah beesha habar jeclo guda iyo dibadba in ay taageeraan xisbiga murashaxa uu ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici marnaba suldaanka guud ee habar jeclo halka kuma dhawaaqin in ay waxa taas labada beelood ka wada shaqeeyaan nabadgelyada hadalkiisa waxa uu dhacay inuu gabi ahaan siyaasadda ay labada beelood iska taagaan sida oo kale hal mar ayuu carabku ku dhuftay waxaan ku heshiinay in la xoojiyo xisbiga laakiin labada beelood ee isugu yimi halkan shirka kan beesha habar jeclo iyo beesha awal ee falanqeeyey noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo barnaamijyadooda waxay isla garteen inay mowqif iska wada taagaan siyaasadda maanta socota kana wada shaqeeyaan xoojiyaanna xusbiga kulliya arrintaasi waxaa haddii labada beelood heshiiyeen waxaa looga baahnaa suldaanka guud ee beesha habar jeclo inuu si toos ah ugu dhawaaqan laakiinse inay beeshiisu meel kasta ay joogto ay taageerto xisbiga kulmiye murashaxiisa Muuse Biixi Cabdi iyo Saylici laakiinse arrintaasi ma dhicin taasi waxay inay cadeynaysaa in halkaasi wax lagu heshiiyeen jirin sida oo kale suldaankii isagu arrintan doonayay inuu murashaxiisa beeshiisa ah ee Muuse Biixi Cabdi ay taageerto beesha habar jeclo
ayaa isagu hadalka qaatay oo sheegay in ay sakuushiyeen hase yeeshee suldaanka beesha habar jeclalkaasu waxaa ka caddaatay inaanu wax taageero ah oo ugu baaqay beeshiisa aanay jirin hase yeeshee daawadayaal xubo kala duwan dad ka mid ahaa goobjoogayaashii shirkaas oo aynaga hayno codod waraysi ah ayaanu daawadayaal intaynu arrintaa uga hordhicin ayaanu idin soo gudbi doonaa balse sida xaqiiqdu tahay iyo arrimaha dhabta ah ee ka dhacay shirka labada beelood uga socday hoteelka City Plaza ee magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco arrinta meesha ka dhacday way ka duwaneed wixii labada suldaan sheegeen suldaanka waliina gaar ahaan suldaanka beesha Subeer Awal Suldaan Xasan uu sheegay inay sakuushiyeen wax alaaliyo wax ka jiraan ma jiraan daawadayaal sida dhabta ah ee xaqiiqdu tahay iyo boqor buur madow oo isagu sheegay in ay dhisayaan musabixi laakiin taas waxay muujinaysaa hadalka waxa uu qornaa suldaanka guud ee habar jecel oo ka turjumayay laakiin taasi markii uu suldaanka beesha habar jecel diiday ayuu isagu uu la sheegay in uu isaga dhinac xiriir gaar ah oo lahaa khadka telefoonkana mar walba ku wada xiriirayeen musabixi iyo maxamed kaahin uu hadalkan arag uga yiri meel kale عبد الرحمن gudoomiyaha midnimo markaan midnimo maxay ahayd ma shirkii ka habar jariya barisba waxa tahay gudoomiyaha shirkii habar jariya iyo habeen midnimo ka soo bilaabay London markii dibadda baxo ibnaad ayga ma uga bisay
يون الوطن كلية بس لكن أكيد مورن بس هبت على أقعد تحس بقى كلية مرشدة مسبب مرة أعرف مورن هذا كان حلو وأكره يو أنا كاتي كنت واحد كان ساعد لك إنه هذا مثلا لو هربا سكرني لو تشالي أورا طيب كانت كده عملها شيء أنا ما أعرفني بعد كوكيري في حس لازم كلية ده كوكيري أي عرفت أنا لو أفضل مرة حتى السودان عرفت حتى أنا أعرف حاجة كلية صلبات ترى في عياد تبرشون كانوا ما خرج يرجع ويقول عياري يا مرة حتى ارجع هو يعني عارف الدواء صوتي والله حياك يا روحان على المعنوي انا كنت مريض هاي فكر هذا ولسه تبني يوم يجي يعني ايه عملت السمعانة عندما لما كنت شكرا يبقى وقت سياسة واحدة لما بكى ذلك ولكن وحبيعي كفتا أركا سودان وعون كل حي بليا كلية الدولة waxaa wareysigan ku jira sida aniga muqaddamta hadalkiisa Suldaan Cabdiladiif Maxamed شفتي ماما انت ست شوية كبيرة هاي قصة من سكة صنع رأسه كدعيو الشغل بيها اللي شكله عليه أطول سنين هاي أطول سنين هاي ما في شكة جدار بتري هاي كدنا دلف دلف ونشا يو صوت ما نبغى نقول صوت ما هاي نقول ورا صوت هو صوت ما marka si soo dhamaataan marka soo dhamaan aynkeeya barnaamij ku jira su'aal wala si soo dhamaan marka si uu deeyo ma loo diido Facebook noo guulaysanaya yintii marka soo been ku deeska marka bilbil fadhiyo magaalada قاعدة دراسة وقتها تشتغل بيانات دراسة أكتر سنين بالقول مثلا معلمون كده خصوصا قوية ما دام القول دي خصوصا تماما بالقول بتاعه مثلا دي إيه خصوصا قوية قبل ما كان مسبب من الجمل بتلاقوا عليه سلطان عبد الله سبحانه ويا إنسان يسوي الكلمة بالقول خصوصا تماما بالقول يا إنسان أيوة مثلا واحد حيسان اللي يسوي الجواب واحد حيسان كي يومي لا ولا شرط حيسان تقول يسوي شيء وفي ما حيسان يسوي شيء أيوة أيوة كيف حيسان المسجد أيوة أيوة الصحافة يتابعون الصحافة قبل نوصل معها تقول شيء ما دام نقول يا ما انت تقول شيء ما دام نقول صوت ما يجي يا كده يقولون كلام ما في دماغي لا هذا ما في سياسة البرلمان مؤثرين كتير اي وهذا كله سبب بعض في الدراسة
Thank you.